dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bilowday filino go'aano la xiriira xakamaynta hubka kuwaas oo la sheegay in ay qayb ka yihiin qorshayaasha lagu sugayo amniga guud. Tallaabooyinkan ayaa yimid kadib markii shalay la isku dayay in taliyihii hore ee xoogga dalka Soomaaliyeed Odawaa Yuusuf Raage loo diiday in uu la galo gudaha xayndaabka garoonka Muqdisho hub culus oo nuuciisu yahay BKM, iyadoo sidoo kale la isku dayay in laga celiyo gelitaanka xaruntaas isagoo ilaaladiisa oo kooban. Saraakiil ka tirsan laamaha amniga oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in ay fuliyeen amarro ay heleen, hase yeeshee taliyihii hore ayaa ugu dambeyn gudaha u galay xayndaabka kadib markii uu ka degay gaarigiisa isla markaana uu wadahadal la yeeshay saraakiishii goobta joogtay. Dhanka kale, dowladda federaalka ayaa kordhisay baraha baaritaanada ee laga galo xayndaabka garoonka Muqdisho. Hay-adaha amniga ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid lagu xoojinayo hubinta amniga isla markaana ay qayb ka tahay qorshayaasha guud ee lagu sugayo amniga caasimadda.